يا سلام دي بنها تايها بلديا يا سلام كدرن تبكيو إلكو تدحوي يقبي لوين كسو دواذا janalka Salma Vlog and Entertainment oo aan idinku soo gudbino sheekooyin qosol iyo qaraaxo ruwaayado qaybta vlogska iyo waliba xubinta moogtahay tan nagu cusub tahay subscribe de oo qaybta gaduudan ku dhufo oo meesha gambaleelka ah riix si aad u hesho muuqaaladeena dambe insha Allah markana muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay socdaalkii aan ku tagay dalka Mozambique iyo wixii aan ku soo arkay toban sano ayaa laga joogaa markii aan tagay dalka Mozambique waxaana xilligaas arrami ii gaara oo aan u tagay meelo kala duwan aan wadankaasi lugta mariyay anigoo gaari ku dhaxmaray magaalooyinkiisa qaar waxyaabaha caanka uu ku yahay dalka Mozambique waxaa kamid ah in hareeraha laamiga inta badan dalkaas uu ka baxo geedka cambaha loo yaqaano waliba xilligan ku aaday waxay ahayd mid barwaaqo wadanka u ahaa xilli roobaad cambahana uu aad u dhalayay waxa aan tagay magaalada caasimadda ah ee Maputo iyadoo sidoo kale aan tagay magaalada Palma sidaas la mid ah waxa aan tagay magaalada caasimadda labaad ee dalka Mozambique ee Nampula wadanka intiisa badan waxa uu yahay dhul buuraaley ah waxaana dadkiisu ay ku hadlaan luqadda Portugiiska maadaama dalkaas uu gumaysan jiray Portugiiska waxyaabaha cajiibka ah ee safarkayga Mozambique aan ku soo arkay waxa kamid ahaa in dadku ay badankood yihiin kuwa faqro ah oo aan waxba haysan boqolkiiba 30 ayaa lagu tilmaamaa dadka ladan ee dhaqaalaha haysta wadanku waxa uu leeyahay bad weyn oo qeyraadka ku jira ay kaga faa'iideystaan badankood dadka laakiin sida la rabay beera falatada ugama helaan dalaga ay abuurtaan dadka tahriibta ayaa wadankaas marin u ahaa muddada aan socdaalka sameynayay dadka ayaa doon ay ka qaadaa magaalada Mombasa ee dalka Kenya iyadoo kadib doontaas ay ka dejiso xeebaha dhirirsan dhinaca magaalada Palma ee dalka Mozambique dadka ayaana la geeyaa xero ciidamadu ay ku leeyihiin saldhigga Palma oo wixii ay wataan lagaga qaato goobtaasi kadib waxaa la geeyaa magaalada Nampula oo xero taasi dhaanta ay dadku ku sugaan safar qarsoodi ah ayaana halkaas lagaga saaraa marka loo socdo dalka Koonfur Afrika iyadoo xilli habeena ama gelinka dambe maqribadii dadka gaadiid nooca yaryar ah lagaga kaxeeyo iyadoo buuraha xerada geeska ka mara laga dhex bixinayo oo muqallasiin dadka lacaga kaga qaataan waxyaabaha aan ku arkay Mozambique waxaa kamid ahaa in dadka dalkaas u dhashay heerka fuqarada ay ka gaareen iyo hidaha iyo dhaqanka ay leeyihiin ka soke ay isticmaalaan cunitaanka xasharaadka xilli roobaadka la arko taasi oo cajab ila noqotay iyo wax amakaaga Mozambique wadan dadku ay baahan yihiin tuugaduna ay ku badan tahay ayaan u aqoonsanay socdaalkeennii 10 sano ka hor ee dalkaasi gudaha daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan oo aad ka daawanayseen janalka Salma Vlog and Entertainment haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh oo subscribe saar janalkan si aad ula socoto muuqaaladeena dambe insha Allah waa anigu Xasan Xayi Cabdullaahi oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo It's for that Mozambican sunshine, yo. It's for that Mozambican sunshine, hey. It's for that Mozambican sunshine. That's why we here. That's why we here now. It's for that Mozambican sunshine.